السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني في الله وأحمد درس تسين إن شاء الله ما أنتم حكساب سيء أما سيدا موضوع وجدين مقع عيسى سيدكو صاريسا وايرلس كذا باسور كيسا مركو وايرلس واستعمالي سيد كمبيوتر كذا نوع دور هذا وايرلس واستعمالي سيد سيدكو صاريسا باسور كيسا تاني محيك عاونيسا فور زمان أهانو حدونيسا إنا وايرلس كذا يو تليفون كذا اسكو حرتد باسور لكن متى قاعد مركو باسور كوراقة هادو كرهو قرطي وراقة السوكالة وإلودي ama modulka ayuu ku qoran yahay modulkan wuxuu yaalaa qol kale ama dabaqa hoos uu yaalaa ama meel kale ayuu yaalaa laakiin passwordka wuxuu ku safgaraysan yahay computerkaada computerka waxaad ku isticmaalaysaa wireless markaa ku isticmaalaysa wireless marka passwordka meesha ayuu ku safgaraysan yahay marka sidee ku saaraysaa passwordka oo ku safgaraysan wirelesska marka insha allah labadooda ayaa jirta laakiin insha allah labadooda waa is arki doonaa marka waa maxay sidee ku saaraysaa computerkaada ama laptopkaada oo ku isticmaalaysa wireless passwordka ku jiro marka insha allah si gudubno cashar kasta oo aragno sidee ku saaraysaa wirelesska passwordkiisa marka wirelesska passwordkiisa u saaraysaa insha allah labadooda jirta insha allah labadoodana waa isla arki doonaa marka wadada ugu horeysa waa markaa joogta cadi ahaan desktopka sida had ujeedin markaa joogta desktopka waxaad taabanaysaa keli hoos dhinaca midig meesha ay kugu soo bixayso calaamada wireless haddaad ku dhufto arkaysaa inta wireless ku furan ama wireless kugu xiran laakiin waxaad ku dhufanaysaa dhinaca midig markaa ku dhufatid dhinaca midig waxaad taabanaysaa open network and sharing center markaa ku dhufatid sida ujeedin wuxuu kusoo saaraa pagekan oo cusub pagekan cusub kusoo saaray waxaad arkaysaa networkaada muxuu yahay waa network oo work network ah networka magaciisa oo ah Somali Professional waa mid hadda sameeyay sida u aragto adiga wirelesska passwordkiisa soo saaraysaa okay marka halkaan ku dhufanaysaa markaa ku dhufatid automatic soo kale page kale ayuu ku soo saaraa pagekan ku soo saara waxaa ka dalbanaysaa kili meesha ay qoran tahay wireless properties markaa ku dhufatid sidoo kale page kale cusub ayuu ku sii furaa ama weji kale cusub ayuu ku soo saaraa oo ku qoran tahay connection iyo security marka connection haduu ka adeeg yahay marka adiga waxaad taabanaysaa kili meesha ay ku qoran tahay security marka wirelesska soo ujeed waa kan waa wirelesskaada laakiin hadda ma arki kartid marka sidee ku arkaysaa waxaad taabanaysaa kili show characters markaa ku dhufatid waa si aad u fudud wirelesskaada password kuu save garaysa password wireless ku xiran automatic caadi ayuu kuu soo saaraa marka Axmed 1 ilaa 8 ayaa arkaysa inuu yahay passwordkayga marka automatic caadi ayaa u soo saaran karta laakiin sidaan nasiixada ku siiyaan sidoo kale wireless lagama dhigto sidaan waxaan uu qoray Axmed 1 ilaa 8 kali waa inaan ku siiyo wireless ka soo saaraysa passwordkiisa okay marka wadada labaad ay u gudubno wadada labaad waxaad tagaysaa calaamada oo star ayaa tagaysaa marka calaamada start tahay waxaad tagaysaa control panel markaad tagtid waxa uu sii gudbaysaa haddana network and internet marka sidoo kale sidii hadda oo kale ay ku dhufanaysaa network and sharing center sida hadda ay aragteen page-kii hore ayaa ku soo baxay marka page-kan markuu soo baxo sida hadda ay sameynaysaa waxaad taabanaysaa kali wireless aad ku dhufanaysaa page-kan markuu soo baxo waxaad taabanaysaa wireless properties kadib sidoo kale waxa ku soo bixinaa wejiga hore ama page-ka hore ku soo bixina waxaad taabanaysaa sidoo kale security marka waxaad arkaysaa meesha calaamada oo wireless waxaad taabanaysaa show characters si fiican ayaa u arkaysaa inuu isla wireless soo saaray ama isla wadadii ay tahay marka wirelesska hadduu ka dhumo ama haddaa iloodid sida u saaranaysid waa taqaana hadda sida aragteen wirelesska computerkaada ku isticmaalaysid in aad soo saartid passwordkiisa waa shay aad iyo aad u fudud laakiin sidoo kale qodob kale ayaa jira oo ah qodobkaas sidee ku saaraysaa inta wireless ku isticmaashay computerkaada for example saaxiibkaada xaafadiisa ama jaamacadda ama shaqada ama iskoolka waxay leeyihiin kulli wireless marka wireless marka isticmaashada wuxuu ku safgarayna asiga wirelesska jaamacadda passwordkiisa wirelesska shaqada passwordkiisa wireless guriga saaxiibkaada passwordkiisa marka for example ahmaad waxaan aaday xaafadda yaxya ayaan aaday waxaan isticmaalay internetkiisa ayaan computerkayga ku isticmaalay marka passwordka yaxya iyo wirelesska yaxya magaciisa iyo passwordkiisa wuxuu safgaraynaa computerkayga marka aniga waxaan doonayaa inaan soo saaro passwordka yaxya muxuu ahaa marka xaafadiisa aan joogay ama wirelesska jaamacadda magaciisa iyo passwordkiisa muxuu ahaa oo computerkayga ii safgareeyay marka hadda insha allah waxaan saarka doonaa sida ku saaraysaa inta wireless oo computerkaada safgareeyay oo ah magacii iyo passwordkiisa iyo sida ku saaraysaa inta wireless iyo magacyada ay u safgareeyay marka insha allah taasna ayaan is arki doonaa marka sidoo kale markaad soo saaraysid inta wireless oo computerkaada ku save garaysan ama computerkaada ka isticmaashay waxaa galaysaa sidoo kale meesha hadda aan galnay dhinaca wirelesska oon taabanayno dhinaca midig oon dhigayno open network ama sidoo kale meesha hadda ayaan isticmaali karnaa inaan aadno calaamada oo startna tagno control panel kadib aan kasii galno network and internet kadib network sidoo kale wuxuu noo soo saaraa isla page-kii sida ujeedin markaan xagga galo iyo markaan halkaan galo waa isku mid labada waxay soo saarayaan isla page-kii okay
marka meesha iska xiraynaa. Okay, marka haday halkaan aan galnay sidaan ogaano wirelesska passwordkiisa. Hadda insha Allah waxaan galaynaa meesha ay ku qoran tahay manage wireless networks. meesha aan ku dhufanayna markaan ku dhufano waxaa arkaysaa inta wireless oo ku isticmaashay computerkaada ama inta wireless oo computerkaada ku save garaysay. haday waxaan aragnay kali hal wireless oo ah midka hadda computerkayga ku shaqeynaya, laakiin xagga waxaan soo saaray inta wireless oo computerkayga ku xiray. Okay, haday kana aragnay sidoo kale halkaan waxaad saari kartaa, waxaad taabanaysaa kali dhinaca midig properties ku dhufanaysaa meesha security haday aan galnay kadib waxaad dhigaysaa show characters. marka show characters automatic waxaad arkaysaa isla passwordkii inuu yahay. Okay, marka waxaan soo saaraynaa sidoo kale meesha ay qoran tahay free wifi passwordkiisa. sidoo kale waa mid aniga aan sameeyay. sidoo kale waxaad ku dhufanaysaa dhinaca midig properties security automatic waxaad arkaysaa wirelesski kale. marka waxay kala duwan yihiin. kaas 8 ahaa kan wuxuu yahay gadaal ayuu 6 ka yahay. marka waa wireless kala duwan, laakiin inta wireless oo computerkaada ka gashay ama ka isticmaashay automatic waa save ku save gareynaa computerka waana soo saari kartaa. sidoo kale waa delete gareyn kartaa. haddaan doonay inaan kan ka delete gareeyo waxaan dhahaa remove, sidoo qof kale hadhoodii u soo saaranin ama qof computerkiisa inaan galo aan wax ka delete gareyn karaa wirelesska u isticmaala iyo wax u isticmaala. kaas waa shaqo kale oo sii dheer. marka waa intaas. marka waxaan jeclaan lahaa labada qodob ama labada waddan hadda isla aragnay in la fahmay oo laga faa'iidaystay oo ah qodob sida ku saaraysa passwordka computerkaada kugu jiro iyo sidoo kale inta password computerkaada ku isticmaashay sida ku saaraysa magacooda iyo passwordkooda. marka waxaan jeclaan lahaa in la fahmay oo laga faa'iidaystay. marka hadaa fahamtay ka faa'iiday oo ka faa'iidaystay ha iloowin asxaabtaada walaalahada sii gaarsid sida aygana ugu sii faa'iidaystaan. sidoo kale hadaa su'aal qabtid ku saabsan dhinaca computer ama telefoon ama dhinaca technology ku saabsan waa ay soo qor kartaa Somali Professional page hadda ku soo baxayo. meesha aad tagaysaa SMS ay soo qoraysaa ama message ay soo qoraysaa. anigana waxaan soo diyaa insha Allah in aan ku soo jawaabo hadaa mushkilka haystane in aan mushkilada kula xaliyo. marka ha iloowin sidoo kale page-kan share garaysid oona like garaysid. hadaa wax fahmi cashirkaada sharxaaya ama dhibka dareentay sidoo kale commentiga hadda YouTube ka daawanaysid oo ku qorta comment hoos ama sidoo kale Facebook ka daawanaysid comment ay soo qoraysaa. anigana insha Allah in aan ku soo jawaabo ayaa isku daya. marka walaalkiin Axmed waa inuu cashir dambe. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Windows M waxaa arkaysaa inuu page-ka is yareeyay, laakiin page-ka ma soo ceshan kari. laakiin markaan taabto Windows D page-ku is yareeyay, laakiin markaan taabto wuxuu isoo celinaa page-ka ugu dambeeyay aan joogay meesha ugu dambeeyay aan joogay. marka Windows M wuxuu ka caawinaa inuu ka yareeyo laakiin kuma soo celinayo, laakiin Windows D wuuna ka yareynaa dadka ugu geynaa wuuna ku soo celinaa waxa